Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kusoo dhawaada channelkeyga. Maanta waxaan wadaa insha Allah basbousa rabaa inaan sameeyo insha Allah. 2 koob oo waxaan meeshaan ku shubanayaa oo semolina ah. 2 cup of semolina coarse. Koobkan ku cabirayaa. I'm gonna measure for this cup. 1 2 so buuxinaya. I'm gonna make it full. 2 2.5 laba koob iyo bar semolina. 2.5 cup of semolina coarse. 2 ukun. 2 eggs. Melted butter la dhalaaliye koob halfkiis, half cup. Koob sokor, 1 cup sugar. Hal koob oo qumbo, coconut cup. 1 cup yogurt, plain yogurt, hal koob oo yogurt caadi ah. 1 sachet of vanilla sugar, hal xabo bac oo vanillada sokorta ah. Hal bac baking powder, 1 bag baking powder. Isku qas intaasi. Si fiican isku walaaq si isku dhex galaan. Mix all together well. Mix very gentle. Si fiican u qas si isku dhex gasho. Semolidan basbousadan aad u macaanta maasha Allah tabaarakallah. Casuumaad hadaa leedahay hadaa meel dadku imaanayaan wax walba rabadaankii wax aynu ku fiicnayn mal all is really nice. Any occasion for parties, for the guest coming or giving for friend, everything is good. This that's really yummy and nice. Then saxankaan soo qaadanaya. I'm gonna take this big plate. This is oven plate. Waxaan marmarinayaa butter. I'm gonna spread butter all over it. Okay, hadda diyaar waaye. Semolinadaan soo qaadaya. Saxankaan ku fidfidinaya insha Allah. I'm gonna make flat on this inside the plate all. kulli fidfidi saas ugu fidfidi dhinacyada. kulli isla sin, all make same size. kulli waxaa ka dhigtaa wax isla siman.
saan le ku wada all kulli saana kusoo wadaya. xoogaa saxankan dhulku ku garaacay jugjug ku siisa isla simato. I was banging the plate on the table to be a same size. Okay, digsi faaruqan dabka soo saaray. sokoraan ku daraa koobkii koowaad first cup, koobkii labaad second cup, the half cup sugar, koob biyo qandac, koobkii labaad, 2 koob biyo qandac iyo 2 koob iyo bar sokor ah. jeex liin dhanaan half of lemon or lime, whatever you know. I'm gonna squeeze all intaan ku miirayo kulli. waxaan ku daraa qaado heel ah, it's a cardamom powder. waxaan ku daraa rose water. I'm gonna add rose water. One spoon. isku soo karkarinaya. I'm gonna mix well all together. isku soo walaaq. Test the sugar, sokorta, test samee fiiri. If it's sticking, it's ready. If it's come out the bubble. talaajadan geliyay for about 1 hour. I take to the fridge about 1 hour, sorry, because it need to be settled down and to be stick on the bottom. inay hoos ugu dhigto oo xogaa yar adeeg ay noqoto si ay u fariisato. hadda waan jarjarayaa. I'm gonna cut that slice. saasaan u gogoynaya. saan le kuwad all, saan le kuwad kulli sida la ugogoy all cut like that size. okay, inta waxaan ku haystaa loos ka caadiga ah. waan soo fiiqay biyaan kusoo karkariyay. I was boiled little bit water for this nut. Again, I peel off the skin. I'm gonna put on the middle. dhaxdan ka gelgeliyay. marka waxay tahay biyaan kusoo karkariyay wax yar looska qolofka ka soo fiiqay. ka bacdi saan oo noqday. Masha Allah, tabarakallah. So beautiful. la soo dubaya ka bacdi
ovenka aan gelinaya about maasha allah ovenkiyaan kasoo bixiyey saane way ekaatay quruxda maasha allah biyo sokortayna waa kaas the sugar syrup I'm gonna put on the top. The syrup was little bit, the lukewarm, but the semolina is very hot. When it's very hot, you have to put on the syrup on the top. This is beautiful. Wow, mashallah. Leave it about 5 minutes to soak the syrup. dhaaf 5 daqiiqo camal si ay u cabto muxuu ahaay sokorta gudaha ugu dhaadhacdo u gasho biyaha sokorta ka bacdi haddana meeshii aad soo jarjartad ku celinaysaa again waad soo jarjaraysaa haddana calaamadaha muujida raacaysaa waad jarjaray again you will follow that the lines they have been cutted before again you will cut just to follow the line ka bacdi waxaad raacaysaa qadkaasi un soo jarjaraysaa maasha allah ما شاء الله أصحابي هذا كيشة وحايدين قاعد صناعي سبسكرايب